السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti habboon daawadayaal idihaanba meel walba dunida ka joogtaan. Halkani waa Zaafi Media. Daawada haddii ugu soo gaaray muuqaalkan iyo qodobadan xasaasiga sii share gare, like iyo comment hanaga ilaawin lana wadaag asxaabta. qodobadeena xasaasiga warkeena ugu door kordhoon waxaa ka mid ah Axmed Madoobe oo sheegay inuu ka badbaaday isku day dil lana doonayay in lagu qaarajiyo gudaha magaalada Muqdisho, isagoo oona sheegay in arrintaasi ay ka dambeysay kooxda Damuljadiid ee gudaha magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa la sheegay la yaab ku noqotay bulshada Soomaaliyeed. Axmed Madoobe iyo sidoo kale kooxda Damuljadiid ayaa isku haya sida la ogaaday in ay si weyn hadda isku hayaan arrimo la xiriira dekedda Kismaayo, iyo sidoo kale inay jiraan xaalado kale la xiriira ra'iisul wasaaraha cidda noqonaysa. Axmed Madoobe ayaa maalmahan falal gurcan ka waday magaalada Kismaayo. Axmed Madoobe ayaa Muqdisho u tagay qorshe aan ahayn caleemo saarka madaxweynaha Xasan Sheikh, isagoo oona tilmaamay in halkaasi kulamo kula qaadanayo safiirka dowladda Imaaraadka Carabta oo fadhiya Muqdisho, waxaana la tilmaamay inay ka wada hadlayaan dekedda magaalada Kismaayo oo la sheegay dowladda Imaaraadka Carabta doonaysa in Axmed Madoobe siiso 10 milyan ee dowladda Mareykanka iyo sidoo kale ku wareejiyo maamulka dekeddaasi. Axmed Madoobe iyo sidoo kale Xasan ayaa la sheegay in si weyn isugu hayaan dekedda magaalada Kismaayo, sidoo kale haatan madaxweyne Xasan inay kala qaybsadaan 10 milyan halka Axmed Madoobe uu doonayay in lacagtaas uu faraha ku shubto. qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasi ah ayaa daqiiqadaha soo socda ku qaada digidhigoona wararkeena. qodobka dooda ee aanu doonayna inaynu aragtidiina ku dhiibataan wuxuu yahay Axmed Madoobe xilligii uu dalka ka ariminayay madaxweynihii xafiiska baneeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudaha magaalada Muqdisho ku tilmaami jiray meelaan amnigooda wanaagsanayn, si weyn u ammaani jiray kooxda Damuljadiid. haddiiba maanta si weyn uga cabanaya kooxda Damuljadiid, maxaa lagu macnayn karaa hadalka ka soo yeeray Axmed Madoobe? ayna ku bilowna wararka laga helay magaalada Muqdisho. Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Muqdisho oo si toos ah u sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo, isagoo oona sheegay in qorshahani mid si weyn u maleegay kooxda Damuljadiid, balse uu tilmaamay inay fashiliyeen koox isaga si weyn uga agdhow. wuxuu Axmed Madoobe tilmaamay in la qaarajiyo iyo sidoo kale in qorshahan uu ahaa mid si weyn looga soo shaqeeyay.